The Italian volunteer worker Silvia Romano, who was released yesterday from abduction, is safely back home. Romano has been in the hands of the Al-Shabaab militants for almost 18 months after her abduction in 2018. mugdi badan ayaa hareeyay qaabkii lagu sii daayay haweeneydii Talyaaniga ee Silvia Romano oo muddo 2 sano ku dhow lagu haystay koonfurta Soomaaliya kadib markii laga soo afduubtay gudaha dalka Kenya. Markii ugu horeysay waxaa warka sii deynteeda shaaciyay ra'iisul wasaaraha dalka Talyaaniga Giuseppe Conte isagoo ugu mahadceliyay sirdoonka Talyaaniga ee dibadda qaabilsan. laakiin markaas kadib waxaa soo baxay in hawshu ay ahayd mid ay iska kaashadeen 3 sirdoon qaab 3 geesood ah. waxaa ugu horeeyay ee sirdoonka ahaa sirdoonka dalka Soomaaliya ee kan Turkiga ee MIT iyo kan Talyaaniga ee SISMI waxaana kaalinta ugu weyn ka qaatay sii deynta gabadhaasi dalka Qatar. wakaaladda wararka Turkiga oo soo xigatay ilo amni ayaa qortay in sirdoonka Turkiga ay ka qayb qaateen badbaadinta haweeneydan Talyaaniga ah ee Silvia Romano iyadoo aan faahfaahin ka bixinin sida arrintaasi ku dhacday. warbaahinta Talyaaniga oo si weyn u faaqiday sii deynta Silvia Romano iyo sida ay diinta Islaamka u qaadatay ayaa dhinaca kale sheegay in la bixiyay lacag madax furasho ah oo 2 milyan ilaa 4 milyan oo euro loo bixiyay madax furasho ahaan si loo sii daayay gabadhani. waxaana wararka qorayaan wargeyska Corriere dello Sera wargeyska Le Repubblicana ayaa isna qoray in sirdoonka Soomaaliya ee NISA iyo Gaasimo Fahad Yaasiin ay ka shaqeeyeen sii deynta haweeneydan Talyaaniga ah iyaga oo la xiriirayo kooxihii argagixisada ay haystay. waxaana markii dambe la keenay beerta Mira Indhayar ee degmada Afgooye si loogula kala wareego. sirdoonka Turkiga ayuu sheegay wargeyska inuu ahaa damaanad qaade si hawshu nabadgelyo ugu dhamaato waxaana si weyn u doonayay in Silvia Romano la sii daayay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maadaama uu afduub ku dhacay xilli uu socdaal ku joogay dalka Talyaaniga mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Corriere dello Sera ayaa mar kale qortay in dowladda Qatar ay qayb weyn ka qaadatay sii deynta Silvia Romano iyadoo dalkaasi caan ku yahay inuu xiriiro la sameeyo ururada Islaamiga ah iyo inuu madax furasho u siiyo lacag fara badan oo malaayiin dollar ah. afduubkii Silvia Romano wuxuu dhammaaday 5 May 2020 markii la bixiyay lacagtii madax furashada ahayd iyadoo oo xilligaasi ay u sheegeen raggii afduub ku haystay in la sii deynayo waxaana la siiyay dharkii ay ku safri lahayd iyadoo saacad kadib lagu soo qaaday cagaf muddo 3 maalmood kadib ahna la geeyay goobtii lagula ballamay ee lagu sii deyn lahaa oo ciidamo kale ku sugnaayeen Afgooye. gabadhan la sii daayay oo u dhalatay dalka Talyaaniga ayaa ahayd samafale caafimaad kana howlgalaysa xeryaha qaxootiga ee dalka Kenya halkaas oo ay ku sugan yihiin kumanaan Soomaali ah oo ka soo barakacay dalkeenii. si kastaba ha ahaatee gabadhan ayaa gaartay dalka Talyaaniga kadib sii deynteedii iyada oo xiran dharka lagu yaqaan hablaha muslimiinta ee Soomaalida. iyada oo hadashay ayaa waxa ay sheegtay inay qaadatay diinta Islaamka oo aysan jirin cid ku qasabtay iyada khiyaarkeedana ay ku qaadatay diintan Islaamka. muran badan oo ka taagan sii deynta gabadhan haddana waxaa farxad weyn u ah ehelkeedii iyo deegaankii ay ka soo jooday in ay gabadhoodii si nabad ah ku helaan. afduubayaasha Soomaalida ayaa caan ku ah in ay gudaha dalka Kenya ka soo afduubtaan qaar ka mid ah dadka ajaanibta ah ee ku sugan halkaas ama hay'ad ha u shaqeeyeen ama gurmad caafimaad ha ka shaqeeyeen. On November 20th, 2018, gunmen stormed Chakama Trading Center, approximately 70 kilometers away from Malindi,